kulan wacan saaxiibayaal mar kale kusoo dhawaada muuqaal gooni ah oo aynu ku eegayno asbaabaha kuu diidan inaad guul gaadho. Guushu waa wax u baahan dadaal sidaan horey uga soo sheekinay muuqaalkii ka horeeyay. Haddaba maxaa diidan inaynu guuleysano? Waxaan halkan kugu soo gudbinayaa 13 qodob oo caqabad ku ah guusha aynu hiigsanayno. lambarka koowaad cabsida. waxa ugu weyn ee hortaagan guusha waa cabsida guuldarrada. Stephen Grant Erickson. cabsidu waa dareen ka dhasha fikir taban badanaa kaasoo u diida qofka inuu wax qabsado guulna ka gaadho hadaf uu leeyahay. haddaba cabsidu waa caddayn been ah oo u muuqata run ama waa fikir taban, waa mala awaal kaasi oo kuu diidan inaad guul gaadho. si guud fikirka kugu soo dhaca markaad doonaysid inaad wax qabsato waa laba nooc oo kala ah: fikir taban iyo fikir togan. fikirka tabani waa kan koosgareeya ama sababa cabsida. fikirka toganina waa kan u baahan in aynu hal abuurano si aynu u qabanno waxa aynu doonayno. lambar 2 cudurdaarka. cudurdaaradu waa musmaarada loo isticmaalo in lagu dhiso aqalka guuldarrada. sidaa waxa yidhi Bill Ragin. 99% guuldarrooyinku waxa ay ka yimaadaan dad kale caadada ah in wax walba ay cudurdaar u sameeyaan ama ku tirsan hal shay oo kaliyaata, kaas oo la yiraahdo waan qaban lahaa xaaladaas ayaa dhacday, waan sameyn lahaa lacag la'aan ayaa haysa, waan qabsan lahaa da'da ayaa ciilaysa. dhammaan kuwaasi waa marmarsiyo kuu diidan inaad guul gaadhid. adiga oo ku sugan xaalada aad hadda ku sugan tahay ayaad ka boodi kartaa gidaarka. lambar 3 quusashada. quusashadu waa rajo beelid ama waa inaad faraha ka qaado waxaad rabtay inaad guul ka gaadhid adigoo u aanaynaya inaad marar badan aad ku fashilantay. waana dabar adag oo qofka uga xiran maskaxda kaasoo u diidaya inuu dhaqdhaqaaq xor ah sameeyo ama si xor ah uu fakiro, kadibna dhaxal siisa inuu aamino inuusan ahayn wax jira. sababta koowaad ee qofku uu u guuleystaa waa isagoo aan marnaba quusan. kuwa guuleysta waa kuwa weligood aan quusanin. lambar 4 dibudhigista iyo waxsiga. waa adigoo qorshe aad maanta qaban lahayd bari u dhigatid, naftaadana aad ku maaweelisid yididiilo been ah. dibudhigashadu waa mid ka mid ah asbaabaha waaweyn ee ku diidan inaad horumar gaadho. marna dib ha u dhigin bari waxa aad maanta awoodo inaad qabatid. lambar 5 guuldarrooyinkii hore. badi dadku waxa ay isdhiibaan markay guuldarrooyin fara badan la kulmaan. waxa ay aaminaan ama ay rumaystaan in aysan guuleysan karin maadaama ay guuldarrooyin fara badan la kulmeen. waxaana maskaxdooda ku xirma dabar adag oo u diida inay guul gaadhaan. haddaad aragtid inaad noloshaada guul ka gaadho, iska ilaali dabarada guuldarrooyinka ka dhasha. lambar 6 aqoon darrada. aqoon darradu waa shayga ugu horeeya ee kuu diidan inaad nolosha guul la taaban karo aad ka gaadhid, waxna aad ka bedeshid noloshaada si aad dadka dhexdiisa magac iyo maamuus aad uga dhex yeelatid. haddii aadan aqoon lahayn ma gaari kartid hadafkaaga iyo qorshe aad dejisatay. aqoontu waa furaha horumarka, waana shayga lagu kala garto waxa naftaada horumarinaya oo aad guul ku gaadhaysid iyo guuldarrada. lambar 7 ka fikiridda wixii tagay. wixii dhacay way dhaceen, dib ha u eegin. horey uga soco hadafkaaga ka xiga, hana ku mashquulin wixii tagay maxaa yeelay waxa ay kugu dhalinaysaa inaad ka cabsatid mustaqbalka kugu soo food leh. cabsidaasna waxay kuu horseedaysaa fashilka ama guuldarrada. tan ugu daranna waxa weeye inaad joogto halka aad joogtay shalay. lambar 8 saaxiibka xun. saaxiibka xun waa cadowga koowaad ee kuu diidan inaad horumar gaadhid, waxna uu kugu saameeyaa si dhib yar. dhaqamada xunxun uu leeyahay sida cabidda sigaarka, khamriga, cunida jaadka iyo wax kasta oo naftaada mustaqbalkeeda u keenaya dhibaato. saaxiibka xun waa sida cufis jiidadka dhulka oo kale. haddii aad doonaysid inaad guuleysatid, ka dhabee murtida ah shimbirba shimbirkiisu la duulaa oo la duul qof u socda sidii u gaari lahaa horumar noloshiisa. lambar 9 balwad. waxaad barato waa baaska. balwadu waa waxa naftu ay la qabsato oo ay muddo ku celceliso. sida magaca ku cad waa bal iyo wad, waana waxaad muddo wadid. balwadu waa laba nooc: balwad fiican sida sportska iyo balwad xun sida cabidda sigaarka iyo qaadka.
balwadda xun waa mid ka mid ah asbaabaha waaweyn ee kuu diidan inaad noloshaada isbeddel la taaban karo aad ka gaadho. Lambar 10. Raaligelinta qof kasta. Ma aqaan furaha guusha, laakiin furaha guuldarrada waa isku dayga in qof waliba la raaligeliyo. Bill Cosby. Murtida Bill Cosby waxa ay noo sheegaysaa inaad raaligeliso dadka oo dhan ayaa ah mid aan suuragal ahayn, balse inaad raaligeliso Rabbiga ku abuurtay, aadna qanciso naftaada, deedna aad qabatid waxa u dan ah ayaa guul ah. 11. Adkaysi la'aanta. Waan kari waayay, waqtigaa dheeraaday iyo way adkaatay waa ereyada ugu badan ee aad ka maqlaysid dadka guuldaraystay. Dadkani waa kuwo aan lahayn adkaysi iyo dulqaad, waxayna isdhiibaan guusha marka ay uga harsan tahay tallaabo kaliya, mana ku sabraan dhibaatooyinka soo wajaha. Lambar 12. Hurdada badan. Hurdada badan waa cadow. Waxay cadow u tahay waa waqtigaaga. Guul haddii aad doonaysid waa inaad ka faa'iidaysatid waqtigaaga. Haddii waqtigaaga inta ugu badan aad ku bixisa hurdo, goorma ayaad guulaysanaysaa? Goorma ayaad se qabanaysaa wixii loo baahnaa inaad qabatid? Lambar 13. Caajiska. Caajisku waa awood darro ka timaada maskaxda, taas oo qofka ka dhigaysa mid aad u liita oo daal ama culays dareema maskax ahaan iyo jidh ahaanba, sidoo kalena aan awoodin inuu shaqo qabto kana cagajiida. Dad badan oo ku kala nool qaarado kala duwan ayuu caajisku ka reebay qayrkood oo uu ka hor istaagay inay gaadhaan guul amase hadaf yeeshaan. Iska ilaali caajiska oo ka ducayso. Halka aad kala socotay maqalkan waa channelka Ogaalka Audio. Fadlan subscribe, like iyo share. aad baad mahadsantihiin.